kusoo dhawaada warka maqal news dadka ku nool dalkan Sweden ayaa ku kala aragti duwan in dawladda Sweden ay ka mid noqoto ama ay ku biirto gaanshabuurta NATO kala bar dadka ayaa aaminsan in dhexdhexaad laga noqdo arrimaha ka soconaya dalalka Yurub taa oo macquul ah in Ruushku wadamo hor la dagaal ku qaadi karo hani oo ah Soomaali ayaa ka mid ah dadkaasi waxayna sheegtay in ay fiicnaan lahayd in Sweden ay sideedii ahaato ayna ku biirin NATO xafiis u adeego Soomaalida ee ku yaala xaafadda ay Soomaalida u badan tahay Rinkeby ayaa la sheegay in halkaas ay ka jirto cunsuriyeen iyo midabta koor ka dhadhax dadka Soomaalida gaar ahaan halkaas ku dhaqan sidoo kale shaqaalaha iyo dadka loo adeego ayaa aad uga dhaliilsan shaqada halkaas ka soconaya waxa si koray dadka cabashada soo gudbinaya ee ka dhanka maamulka xafiiskaasi ama xaruntaasi iyadoona ay sheegayaan labadii sano ugu dambeysay in ay aad u yareed dadka ku qanacsan adeega xafiiskaasi ugu dambeyntii cunsurigii Rasmus ayaa loo diiday in uu yimaado magaalada Stockholm 1 bisha May halka oo uu ku doonay in uu mar kale ku gubo kitaabka Quraanka Kariimka booliska ayaa ku celiyay codsigiisa iyadoona isla maalintaas uu xisbiga soosyaalka socod ku marayo wadooyinka magaaladaasi sidoo kale magaalooyinka Örebro, Borås, Trollhättan ayaa shalay iyana diiday in uu Rasmus soo caga dhigto magaalooyinkaasi wararkaas oo dhameystiran waxa ka daalan kartaa bogeena maqalnews.com magaciigu waa Maxamed Ibrahim ayaalne nabadgelyo